magaalada Wajaale waxa ay ka mid tahay goobaha ahmiyadda weyn u leh dhanka maalgashiga dal ahaan si loo abuuro fursado lagu maalgashadana waxaa socda dadaalo kala duwan oo ay wadaan maamulka magaalada iyo xukuumadda deegaankuba isku tashiga bulshada ee magaalada ee ah in muuqaalkeeda dhismaha magaalada wax laga bedelo ayaa kulan madal weyn oo ay soo agaasimeen maamulka magaalada Wajaale ay isugu yimaadeen ujeedada maanta aan isugu nimidna waxa weeyaan sidii magaalada loo hormarin lahaa isla markaasina loo dhisi lahaa loona bilcin lahaa korna loogu qaadi lahaa dhismaha aynu deegaanahay tayadeedana laga dhigi lahaa magaalo la tardanta dhigeeda dhanka kale kobaca magaalooyinka waxaa lagu hagaa qorshe hagis si loo suurto geliyo horumar isku dheeli tiran oo isqaadan kara taasi oo uu dhigayo magaalooyinka in wajahadaha muhiimka ah laga dhiso dhismayaal tayo leh isla markaasina kor u qaadi kara bilicda magaalada magaalo kasta oo dalkeena ku taalo waxaad aragteen inay wajahadiigu ka gedisan yihiin cirifyadeeda isla markaasina la tayeeyo hadday wadooyin tahay iyo hadday tahay dhismayaal si bilicdeeda iyo dhaqaalihiigaba kor loogu qaado in la maalgeliyo haddaba magaalada Wajaale oo ka mid ah magaalooyinka sida xawliga u koraya kuna taala goob xuduudeed oo istiraatiiji ah ayaa markaa adeegto dhismayaasha ka dhisani ay yihiin kuwa aan la jaan qaadi karaynin istiraatiijiyadda iyo shuruucaha dalka ee dhismayaasha isla markaasina ay u badan yihiin jiingado markasta khatar joogto ah u leh una nugul gubashada iyada oo ay xusid mudan tahay dhibaatooyinkii dabka ee ka dhaca magaalada muddooyinkii u dambeysay ee magaaladeena guryaha lagu nool yahay iyo suuqyada kala gudusan ee soo noqnoqonaya dhibaatooyinka ku haya shacabkeena dhaqaalihiina iyo nafteenaba halis ku ah isla markaasina ay u sabab tahay tayaxumada dhismaha ee magaaladeena ka jirta khatarna ay ku tahay dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba si looga kabsado in la sameeyo tayo dhismayaal tayo leh oo u nugleyn ama iska difaaci kara dababka sida lama filaanka ku iman kara ama sida lama filaanka ku fidaya haddaba markaan dhismayaasha la hormarinayo laguna hago shuruucaha iyo qorshaha cad waxaa looga baaqsan karaa khatar ka timaada tayada dhismaha ugu dambeyn bulshada magaalada waxaan ugu baaqaynaa in ay magaalada dhistaan oo ay dhismayaal tayo leh oo rasmi ah dhisaan taasi oo magaaladeena wax badan ka bedeli doonta kobaceeda quruxdeeda lana tartami doonta magaalooyinka Itoobiya iyo magaalooyinka kale dhigeeda maanta haddii ay lahaan lahayd meelo lagu nasan karo hoteelo maxay standard ah meelo lagu nafisi karo de waaba loo dalxiisi man lahaa laga sii carro marka businesskii laga dhamaystay laga sii carro mooyaan waxay soo hoy lahayd intaas oo kharashay soo hoy lahayd dakhliga intaas oo shaqo abuur ay soo hoy lahayd bulshana iyada un baa magaaladeeda magaalo ka dhigata Soomaalidu waxay tiraahdaan ninkii wax haysta ay wax loogu daraa marka maanta la arko businesska ka jira Wajaale sida loogu dhiiranayo bulshadeeda ay ku dhiiratay ay keentay isbedel ay ka keentay ay maxay ahaydeen dadka kalena maalgashiga kalena iyo maalgashiyada kale ay ku soo hiran galaan maalqabanada wadanka maalqabanada wadamada dariska markaas ku soo hiran galaan laakiin maxaa inooga baahan yahay inagu marka hore inaan waxayno haddaba taasi si ay magaaladu u horumarto Itoobiya waxay dejisay istaraatiijiyad taasoo ah bayaan shuruuc xeerarkaas oo muhiimadiisu yahay markay aragtay dhismayaasha ama maxay xawliga dhismuhu ugu socdo magaalooyinka Itoobiya sidii loo heli lahaa
dhismayaal ku habboon deegaan walba